waa hagaag daawadayaal halka aad sida tooska nooga daawanaysaan waa telefishinka bulsho hadda khadka telefoonka waxaa ku jira barasaabka gobolka awdal maxamed axmed caalin timba gudoomiye telefishinka bulsho ugu horeyn kusoo dhawow gelinkii hore ee maanta iyo kii dambe waxaa ka dhacay shaqaaqooyin deegaano ka tirsan gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorma iyo weliba magaalada xuduudeedka gobolka awdal garoy cawl gudoomiye ugu horeyn warbixin naga sii wixii dhacay waa salaamantiin marka hore aad baan idinku mahadnaqaya xiriirka ala soo samaysay dhibaato weyn may dhicin saaka waxaa garoy cawl ka dhacay arrin yaroo iska caadi ahayd markii hore ugaaskii cabdirashiid baa lagu imanayaa magaalada khilaaf badan oo jira awgeed waxaanu iska joogo taasaa dabeed buuq yar dhalisay alxamdulilah ciidanku wuu celiyey ugaaskii dad meesha ka yar buuqbuuqayna ciidankaa soo kaleeriyey waxoogaa halkaa qof baa ku dhaawacmay dhibaato kala weyn oo dhaxdayna may jirin waana lagu soo kala daran insha allah khayr badan baan kusiinaya gudoomiye khilaafka jiray waa maxay waa khilaaf salaadiinta gudahooda ogun insha allah oo markaa dadku hadda si toosaba telefishinka bulsho kaaga daawanayaan khilaafka salaadiinta ku dhex jira noo sheeg ee aada u celiseen kollay dawad iska og tahay oo dadku uu qaybsan yahay siyaasiyad baa loo kala qaybsanaayo salaadiinta gobolka ugu muuqday ugaasku inuu dhan daar soo dhaweynayo taasaa keentay ugaaska looma diidana waa deegaankiisiisa laakiin taasaa keentay in la joojiyo ilaa inta ay xaaladdu caadi noqonayso haddii u ogolaaday inuu iska joogo aad ku qanciseen maxaa keenid gadoodka shacabku mujiyeen kolley dadkeena waa iska taqaanaa markay askari wax arkaan dee askartay turtuuraan waan gartay askarna turtuuray baa dabeedna saas dadkii ku kala kaxaysay dhibaato kaloo jirtay ma jirin gudoomiye waxaad ii sheegtay inaad marka hore isaga u sheegteen inuu iska joogo balse waxay i xaqiijiyeen dad ku sugan deegaanka garoy cawl inaad geyseen ciidamo badan oo aarariya soo la odhan maayo idinka laftigiina u diyaar garoobay in dadkaasi rabshad hadday sameeyaan laga hortago dawladduna waa ogeed oo tallaabadaba ku tala gashay horta ciidan meel kale nooga yimid meesha waxay garoy cawl lagu odogtooda ciidan waaxad ciidan aarariyo hargeysa kasoo dalbanay ma jiro waan gartay waa hawl gobolka gudihiisun bay ahayd waana dhamaatay insha allah dadka qaar waxay leeyihin khilaafka udhexeeya salaadiinta dhaqanka ee suldaan dhowel iyo suldaan samator isku dhinaca iyo suldaan baadi iyo suldaan saleebaan isku dhinaca ayaa labada suldaan ee xukuumadda ku taageeray arrimaha qabsoomidda doorashada ayaa ugaasku siyaasad ahaan aan isku fiicneyn ba la yidhi idinka sidaad idinla muuqataa in salaadiintii dhaqanka qaarna aad la safataan qaarna aad kasoo jeesataan la safan mayno ugaas markuu isagoo mustaqbal madax banaan oo deegaankiisa ugu yimaado oo reerka midaynayo ilaa ka qabtaa ma jirto laakiin khasaare maxaa ka dhashay markuse laakiin khasaare waxaa ka dhashay sida laysoo sheegayna ku dhacmay halkaa garoy cawl ugaasku soo deegaankiisa maaha ma cid buu uga fasax qaadanaya ya ugaaska deegaankiisa soomaha deegaanadu imanayay ma cid gaar ah ayuu uga fasax qaadanaya ugaaska deegaankiisa hadduu khalkhalka gelinayo nabadgelyada waanu iska joojinayna waxa ugu weyne nabadgelyada khalkhalka gelinaya ee ugaasku waday bal noo sheeg si cad ma hadduu khilaaf ma jiro dhanna ula softo soofka dhici maayo hadda xaaladda waa sidee gobolka hadda waa caadi gobolka waa nabadgelyada way sugantahay gudoomiye sidoo kale waxaa jirta dadka deegaanku arrimaha qabsoomidda doorashada ayay leeyihin saamigeyga laanu helno aan xaqa u leenahay ma gelino doorasho markaa ma salaadiinta dadka fikirkooda ku hadlaya ayaad kasoo horjeedaan ciddii la safan ma salaadiinta fikirkooda hadday oraan isu qabsan waxay xidhi haddaan fikirkooda kasoo horjeednay taasi waa shimbir weliba codkeed ciday dee ninkii yara waanu gelaynaana isaga u taalaasa laakiin dadka gobolka reer awdal diyaar bayo inay doorashada galaan taasaana waxaan weydiiyey waxba iminka murano naga dhexeeyaa ma jiro ugu dambeyntii gudoomiye telefishinka bulsho oo si toos aad ugu warramaysay waa kuugu mahad celinaya waa maxay tallaabada tan ku xigtaa se arrinta maxaad rabtaa inaad ku xalisaan ma suldaanku ugaasku baan ujeedaa inaanu iman mise inuu imaado maxaad ku xalin doontaan ugaasku isagoo waxaa magani waa si malaayaadaadi ugaasku isagoo madax banaan oo mustaqilo dadkiisa ay soo dhaweynayaan wuu iman karaya aad baad mahadsan tahay gudoomiyaha insha allah gudoomiye aad baad mahadsan tahay barasaabka gobolka awdal
maxamed axmed caalin timbro waad mahadsantahay maadaama